السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي كحجينك شرقدونك كلها وكيلة أجاسمها جود كوميشن كتمرتا قدوميها جود خيراتك يحل بعنده شركة beneficiaries أوضل electricity قدوميها جود شركتها تمرتا إدريس وكيلك شركة هي شركة ومسؤول كده وقصر هي دوشان iyo dhammaan teamka wasaaradda dhammaantiin waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi saaka aan u joogna xafladan oo ah xafladda saxiixa qandaraaska mashruuca koronto balaadhinta magaalada Boorama mashruucaas oo ka kooban 8 megawatt oo DC solar ah 20 megawatt oo bayteriya iyo 5 kilowatt oo evacuation line mashruucan oo soo socday muddo sanad iyo dheeraad inta aan joognay iyo muddo ka horeysay maanta aan u joogno saxiixiisii oo soo maray caqabado badan iyo shaqo xoog u badan kala saaristiisii designkiisii iyo mashruuca bilowgiisii oo aan maanta u joogno saxiixiisii oo uu gudbi doono insha Allah implementation maanta wixii ka dambeeya aad baan ugu faraxsanahay kullee wuxuu soo maray waqtiga aadka u dheer oo lagu kala saaray oo soo tartameen shirkado badan oo caalamiya oo dhowr iyo 30 ay u heshay inay ku guuleysato shirkadda Pure oo technically iyo financially markii la isku daray ay noqotay shirkaddii guuleysatay mashruucaas oo wasaaradahan aan ku dadaalay inuu u dhaco si transparent oo World Bank iyo wasaaradda iyo teamka wasaaradda uu u dhacay ay ku wada qanceen shirkadihii laga guuleystayna oo jawaabahoodii iyaguna ay heleen shirkaddii guuleysatayna maanta ay nala joogto waa sharaf weyn bay noo tahay mashruucan oo ah mashruuca ugu weyn xagga tamarta ee wasaaraddu ay gacanta ku hayso kan iyo ka berbera oo marka la isku daro 50 milyan ah 50 milyan oo markaanu nimo culays badan nagu hayay maanta qaybtiisa ugu dambeysay oo taa na soo dhaaftay waxaana ka faa'iideystay shirkadda Boorama ee Awda Electricity oo xagga shirkadda laftarkeeda ay aad noola shaqeeyeen oo shuruudaha ay ka mid ahayd in labadii shirkadood ay isku biiraan oo maanta hal mas'uul uu matalayo taas oo ka mid noqonaysa hayaanka Soomaaliland ugu jirto inay hesho tamar jaban oo ay ka mid tahay midowga shirkaddu iyo dhaqaalaha maanta bangiga adduunka iyo wasaaraddu ay ku wareejiyeen oo ay hargeysa markii hore nasiib u heshay laakiin midowga ay Boorama midowday ay nasiibka u heshay nasiib darro laakiin magaalada hargeysa aanay u helin oo labadii mashruuc berbera iyo Boorama ay Chinese-ka u heleen mar labaad baan ugu hambalyeynaa dadaalka ay sameeyeen shirkadda Awda Electricity oo maanta iyagoo mida ay jaysadii ay gudoomayaan isla markaana ay leydkii hore u sii dhimeen oo shuruudihii lagu heshiinayay iyadoo oo shidaalkii kacay oo culaysyada caalamku jiraan ay 0.59 ka dhigeen bulshada reer Awdal ay qiimihii ka sii dhimeen iyadoo aan gaadhin mashruucii aad baan ugu hambalyeynaa mashruucu markuu dhamaadana aan qiimo oo ballanqaadka madaxweynaha iyadana uu gaarayo oo laga sii jabin doono insha Allah iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda inay ka faa'iideystaan bulshada reer Awdal khaasatan reer Boorama oo leyd jaban ay helaan shirkaddana aan anaguna wixii karaankayaga iyo xagga iyaga ballanqaadyada kale aan la galay inay leydka sii jabiyaan oo leydku aanu inta noqon oo ilo ka jaban ilaha dieselkan isticmaalo oo maanta uu yahay wax ku shaqeeya badankiisu diesel laakiin mashruucani uu noqon doono mid wax weyn ka tara koronto jabinta iyo ilaha markay solar noqoto iyo storage-keedii oo ku ugu weynaa ee gobolka Awdal ama shirkaddan u heshay nasiib ay noqon doonto laakiin uu yahay barbilow laga rajaynayo iyaguna maalgelin weyn inay keenaan maadaama xaggii dawladda iyadu maalgelintii ugu weyneed oo u dhiganta mideen maalgelinihii hore ah sameysay mid leeg marka kale waa culays iyo heshiisyo badan oo xaggiinana u soo wareegay maadaama mas'uuliyadda bulshada idinku qaadeen oo la idinka sugay warshadihii inay yimaadaan dalxiisayaashii ay il dhaqaale oo ay noqoto gobolka Awdal
marka xagga dawladana waa ka timi xaggoodana waa laga sugayaa mashaariic kalena insha Allah waa sugaynaa shirkadana waxaan kula dardaarmaynaa waqtiga timeline-ka aan heshiiska inoogu qoran iyo quality-ga lagu heshiiyey oo dee ka yaalo shuruudo iyo deposito oo uu noqonayo mashruuc la isku dabagelayo oo bilow maanta noqday culays badanna u yaala injineerada iyo wasaaradda iyo tiimkooda iyo la taliyaasha la shaqeyn doona insha Allah waxaan rajaynaynaa in haddaan si weyn u wada shaqeyno insha Allah aan guul wada gaari doono khamiistana ay inoo taala mashruuca dhagaxdhigiisii oo madaxda dalka ugu sarreysay inaga la soo qayb galayso nasiib darro maanta wasiirkii naga maqan yahay isagu hawlo qaran laakiin insha Allah khamiista aan dhagaxdhigii oo madaxweyne ku-xigeenku isna insha Allah inagala soo qayb gali doono iyo madaxda qaranka ugu sarreysa aan tagi doono insha Allah adinkana rajaynayno inaad nagala soo qayb gashaan mar labaad aad baan idinku mahad celinaa dhammaan martida nagala soo qayb gashay iminkana waxaan u gudbi doonaa saxeexii oo aad markhaatiyaal idinkuna aad nagala noqon doontaan aad baad noo mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waxaan u mahad celinaynaa shirkadda iyo Mr. Dushan insha Allah aad baa u mahadsantihiin maybe you can say a few words. You were listening the whole day in maybe in Somali language, and you are practicing your Somali language. Yes, we here today for the signing ceremony of the Berbera Borama 8 megawatt DC solar, 20 megawatt battery storage, and 5 kilowatt evacuation line. This process took more than a year with the evaluation, the RFP, and the preparation, and we congratulate Björk for winning this very transparently deserved financially and technically for this project with outside of 31 companies. You are the lucky and most deserved with transparent with the evaluation from the World Bank and the Ministry, and we hope you implement on agreed timeline and agreed quality for this project. The times and everything's on your side. Will be supportive through the whole process. And this is a three-party from the company, beneficiary, the contractor, and the ministry. Will support you and we'll work together through the process. And we today congratulate you for the winning of this project, and thank you all of you for participating. Thank you. على تيا تمرتي